لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن ربنا تبارك وتعالى waxaa kelimaad walaalayaal aan iska odhan doonaa mawduuca ciwaankiisa aada akrideen oo qaswat lquluub. af soomaaliya haddii loo rogona macnihiisu uu noqonayo qalbi ingega. qaswat lqalbi macnaheedu muxuu yahay? qaswat lqalbi macnaheedu waa qalbigu inuu adkaado oo uu yaraado alla kacabsigiisu, oo uu noqdo mid aanu jilc ahayn maqalka uu maqlaayo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala, oo uu noqdo mid aan ku waantoob ahayn aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala tusinaya weynidiisa iyo jiritaankiisa, kuwa la arkiyo kuwa la akriyaba, oo uu noqdo mid aan ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa aan ku xasilahayn, oo uu noqdo mid ilaahay subxaanahu wa tacaala kasii jeeda, mucridun can rabbihi multafitun ilaa gayri, meel kale ayaa u jeeda oo u daymoonaya, mutabicun lihawaah yatlubu maa yuxibuhu walaw karihahu rabbuh. waa inuu noqdo mid hawadiisa raacsan, wixii uu jecel yahay un raadinaya, walow waxaasi ha noqdo wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu karhayo uu nacaye. qalbigu calaamaadka markuu yeesho iyo amaaradaha macnaheedu waxay tahay inuu qalalay. waxay culamaa atibaa lquluub ay yidhaahdaan xubintu inay xanuunsanayso waxaa lagu gartaa in shaqadii ay qaban jirta ay isdhinto amaba se meeshaba ay ka baxdo. qofka indhihiisu inay bukaan waxaa lagu gartaa inuu araggiisu yaraado ama waxba u arki waayo. gacantu inay xanuunsanayso waxaa calaamad u ah wixii ay qaban jirtay inay qaban weydo. lugtu inay xanuunsanayso waxaa calaamad u ah socodkii markii hore lagu socon jiray in lagu socon kari waayo. qalbigu inuu buko o uu xanuunsanayo waxaa calaamad u ah acmaashii saalixa ahayd iyo taacaadkii qofku uu qaban jiray inuu qaban kari waayo amaba se ay ku adkaato. qalbigu inuu nool yahay oo uu caafimaad qabo calaamad waxa u ah in khayrkii iyo wanaaggii uu samayn jiray inuu sii kordhiyo mooyaane waxba aana iska dhimin. qalbigu walaalayaal markuu ingego ee uu xanuunsado, xanuunka caynkaasi ku koobnaan maayo isaga, waxa u gudbayaa xubnaha intooda kale, hadday carab noqoto iyo hadday gacmo noqoto iyo hadday dhega noqoto iyo hadday luga tahayba. qalbiga hagaagiisa waxaa ku xidhan xubnaha hagaagooda. hadduu qalbigu hagaagi waayo xubnuhuna hagaagi maayaan. qofka ibni aadamkaahina inta uu kala imanayo taacaadka ilaahay iyo dheeraanshaha uu ka dheeraanayo wixii ilaahay uu ka mamnuucay, marba waxa ay leegaanaysaa nolosha qalbigiisu intay leeg tahay iyo iimaanka ku camiran xaddigiisu intuu yahay iyo qalbigiisu siduu ugu jilicsan yahay ilaahay subxaanahu watacaala xuskiisa iyo dikrigiisa. hadduu qalbigu khariban yahay xubnuhu waa la kharibmayaan. faqad akbara bidalika asaadiqu almasduuq qaala annabiyu sala allahu alayhi wasalam alaa waina fi ljasadi mudga idaa saluxat saluxa aljasadu kuluh waidaa fasadat fasada aljasadu kuluh alaa wahiya alqalb. waa xubinta haddii ay hagaagto jidhka o dhami wada hagaagayo, hadday kharibantana jidhka o dhami uu la kharib maayo. qalbi qalalku wuxuu leeyahay walaalayaal amaarado iyo calaamado. haddaynu waaqiceenna maanta u fiirsanno, haddaynu nahay ducaad iyo talabatu cilm, iyo haddii mujtamaca guud ahaan la eegaba, calaamadahaasi way buuxaan. dadka intooda badana dareen lihi waxay ka ashkatoonayaan quluubtu inay qallashay. waxaad maqli kartaa cibaaraad kala duwan. qaarkood waxay leeyihin qalbigiiba ay qallalay, laa ajidu ladatan lilcibaada,
cibaadada dhadhankeedii iyo macaankeedii ma hayo waan tukanaya sidaan ku galay ayaan salaadii kaga baxaya qur-aankii baan akrinaya anigoo iimaanaan siyaadsan baan dhamaynaya waxaad maqlaysaa dadka qaarkood oo leh oo ka ashkatoonaya iimaankoodu inuu daciifay waxaad maqlaysaa dad le laa taasar biqira'ati alqur'aan dad le maxaan sameeyaa macsiyadii baan si sahlan ugu dhacaya daacaadkii iyo cibaadaadkii baa culays igu noqday kuwaasi waa kuwa hadlaaya dhawaaqaaya dad kale haddii aanay dhawaaqin oo afkooda aanay ka sheegin qalbi qalalka haysta qalbi qalalku dushooda ayuu ka muuqdaa hadalkooda ayuu ka muuqdaa iyo camalkooda walow yaanay kuba dhawaaqin be calaamadihiisa ayaynu isu sheegaynaa walaalayaal si aynu nafta u xisaabino quluubtana aynu u raajicno dib aynu ugu noqono si quluubta qallashee dhagaxowday aynu ugu dhalaalino ilaahay subxaanahu watacaala xuskiisa waxaa calaamaadka kamida baaraka allahu fiya wafiikum cadamu ta'asuri bilmawaacid wa ru'yati alamwaat waasayri bayna alqubuur haddaad is aragto iyadoo waanadu aanay ku raadaynana waxba aanay kaa bedelahayn dadka dhintay aragtidooda waxba aanay kaa bedelahayn xabaalaha dhexmarkooda iyo fooqyada dhexmarkooda isku mid uu kuu noqdo fa haadihi wallahi amaaratun calaa qaswati alqalbi wa dacfi aliimaan waa calaamo tusinaysa qalbigu inuu qalalay iimaankuna inuu daciifay haddaad aragto adigoo daacaadkii ka caajisay haddii aad samaysana aanay lahayn ruux iyo dhadhan ee xarakaad iyo dhaqdhaqaaq madhan ay kaa yihiin waa calaamo tusinaysa iimaanku inuu daciifay qalbiguna uu qalalay waana min calaamaati almunaafiqiin waida qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila intay cibaadaystaanba way iska yar tahay marka ay cibaadaystaan oo salaad ay u kacaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy waxay kacayaan iyagoo kusaalaya caajisnima ayaa ka muuqata khushuuci kama muuqato iyo salaadaasi dhadhan inay ku hayaan ma laha tadabbur iyo ufiirsasho hadalka ilaahay ufiirsanayaan ka fikiri maayaan waxa ka dambeeya dareemi maayaan dhadhan iyo macaan cibaadadu ay leedahay waa juz'un min annifaaq waa qayb nifaaqa kamida oo kugu sugan haddaad amaaradaha iyo calaamadaha si aada yeelato sida iimaanku u qaybsamo ayaa nifaaquna u qaybsamaa oo adigoo mu'mina qayb nifaaqa kamidii ay kugu sugnaan kartaa waxaa kamida qilatu dikri waalgafla can illah inuu xuskaagu yaraado intaad ilaahay xustaaba ay yar tahay iyo intaad ilaahay subxaana watacaala xusuusan tahay inaad noqoto mid ilaahay subxaana watacaala moogan oo muraaqabat llahi waalxayaau min allahi ay ka maqan tahay in ka sarraynta ilaahay uu ka sarreeyo uu addoonku xusuusan waayo oo macaasida si sahlan ugu dhaco ilaahay uu ka xishoon waayaa waa amaaradii calaamad tusinaysa qalbigu inuu qalalay waa ka ilaahay munaafiqiinta yihi walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila quluubtooda ayaa engegtay walaysa fiiha iimaan waxaa kamid a amaaradaha iyo calaamadaha inaad ka cadhoon weydo ilaahay oo maxaarimtiisa iyo xaqiisa meel lagaga dhacayo an yastawiya cindak an yucsaa rabbuk aw an yutaac hadday sinaato agtaada ilaahay in la caasiyo iyo ilaahay in la adeeca oo isku mid agtaada ay ka noqoto oo taacada ilaahay la adeecayaana farxad aanay kuu kordhinahayn iyo raynrayn macsiyada ilaahay la caasiyayana aanad ka xumaanahayn waa calaamad tusinaysa qalbigu inuu ku qallalay iimaankuna inuu daciifay waxaa natiijadu ay noqonaysaa inaanad wanaagna farin xumaana cid aanad ka reebin walaa tashcur biayi mas-uuliya tijaaha diinik inay diinta mas-uuliyadi kaa saaran tahay bana aanad dareemin bal calaamadaasi sida ay dadka noloshooda uga dhex muuqato baaraka allahu fiikum u fiirsada dadka inta wanaagga farta xumaanta reebtaa way yar tahay dadka badankooda waxaa laga yaaba inay iskaga aamusan yihiin xumaantii agtooda lagu samaynayo wanaaggii agtooda lagu dayacay qaarkoodna dacful iimaanku darajadaaba waa la dhaafay oo xataa kii dadka wanaagga faraayay xumaanta ka reebayaan ka badbaadahay adiga maxaa kaa galay baa lagu odhanaya ma janniya naar baa dadka u haystaa taada ka adkow hasaaqidin ummadda qofna waxba ha u sheegin
يعني وضعف الإيمان كي قسوة القلب يودر شدرا قادوي وقفك الله سبحانه وتعالى إلا عاصيابا أكتي سعادة كما قطي وعلاماتك كان إذا قلة الصبر قفك إنه الصبر كيسو يراده عبادك الصبر مايا معتيانا كالصبر كريمايا هذه مصيبة يكون عدنا مركبة وقحية إلهي قدر كيسا يوكاش كتونيا مخلوقات كايوكاش كتونيا وحكم إذا التعلق بالدنيا إن قفك الدنيا قلبك سيكوينات يتعلق بها والدنيا دراد وقفقه وحي إلهي سبحانه وتعالى ودويني والدنيا إلهي كفقيس وأرمها الدنيا وكار ريسيه أرمها وحويان آخره وهذه العلامة والمظهر موجود اليوم في حياة المسلمين وبكثرة موقال كنوعاتين ومداد مقدمانتا نولش ضدك مسلمين واجبات كبا للضياعي حاران كبا لبنايستي وحلقوا الصوابين يؤوين النوى من أجل الدنيا ورهب لو سلادتك محان سلادتك كذا عرورة بريسكو دي من رابينيا أنا أتعلق بالدنيا صلاة لما يدروكم كي لبين أركان الإسلام وحود ضياعي من أجل طلب الرزق رزق يقول مر والبواوي من الله انت إلهي وقدرك والصلاة الرزق هي كي يرى لسابتر سمينه وزياد يسموه يعني إلهي سبحانه وتعالى انتو هلا يوقو بركين لها عدو عباداتك وحوية وكسوا بشي لها قار حراري يبين يالركيسا هي سكبها يحمشترى يبينها مركا لنا وإلهي كبقوه هبلا وحرس كدا هذا محان كشقية صانية عروس بدي من ميدا شيطان كما دينا عاكس وقري مقالة نوع سياد بما انت حياة يا نرش مسلمين تاوغا موقضان نرشي صحابة يا رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم وحيكوها قالت كانت قلوبهم حية والنقية قلوب تود واحد من نول أرنت عين كاسينا waxay noqotay mid noloshooda ka muuqata nolosha qalbigoodu xayaatadoodii ayay ka muuqatay carabkooday ka muuqatay iyo camalkooda laba raad ayaa nolosha qalbigu ay ku yeelan al-athar al-awwal markay kalaamka rabbi maqlaan iyo almawaacid waanada inay raadayso oo dam yakhruju dam min cuyunihim ilma indhahooda ay ka soo daadanto الأثر الثاني والمبادرة إلى امتثال أوامر الله أمر كإلهي مركي مقلان مركي بينه قال سمانه ودق دقان تصاليات بين الله هاي الطهرة وعن بخاري مسلم ورين أيام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحده قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قال أقرأ عليك وعليك أنزل قرآني إيه أخربوا عن كل جيسته رسول كان عبد الله بن مسعود كله ابن مسعود وحو لي رسولك إلهي ما دامكم مقشيا يدو لقبسوا الدتشيب قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري ها وحن دون يعدك لينا كما خلق قرآنك ولقيت جيسا أن قرأ حيثه وقلب جيجا وحويا نور هذه سورة النساء يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضبطه وقبصده إلا وسوق علي آيات القرآن كإلهي سبحانه وتعالى ولي وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يوم القيامة كورمك إن عدوى البعيدكم رخاتف فرسلوا كين الدورة نبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ومدي سوكم رخاتف الدورة هل كامركم مريم الرسول كل صلى الله عليه وسلم حسبك هل كاكوتوج قال عبد الله بن مسعود فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تجرفان رسولك إلهي بان ضيموضا حقي ساناك يسوى لبديس فإن دوضا المبر قراية وقلبي بهدو النور يهي وقلبي إلهي سبحانه وتعالى عبسيدي سواء كترته إنها سئلما يبر قرية ما هم معنى هذا شحنة إيماني وحندار سيها إنه قلبي بإسكدة تنايه مركن وقفك إلمين أيه ويبكي من خشية الله معنى هذا يزداد إيمانا فوق إيمانه إيمان كهراء يا إيمان وكسي كررصنية إيمان باو زيادية وكذلك عبد الله بن الشخير وحورسات الترمذي ورنا أيه وحنوي من رسولك صلى الله عليه وسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة المغرب ولصدره عزيز كعزيز المرجل وحنوي من رسولك صلاة المغرب تكراية
laabtiisa guux baa ka baxaaya, guuxa dheriga ka baxo kala ah. wuxuu leeyahy alimaam alqurطubi raximah llah, wa hadihi caadatu wa sunatu alculamaa laa yasixuuna walaa yascaquun. waa wadada iyo dhaqanka culimada lagu yaqaan, aladiina mala'at khashyat llahi quluubahum, kuwa allah cabsidiisu quluubtooda ay buuxisay. marka allah tabaaraka wa tacaala cabsidiisu ay quluubtooda cadaadiso ma qayliyaan mana suuxaan. hadi waa min caadaati ahli tasawuf, laysat min caadaati alculamaa. ma kana anabiyu sala allahu alayh wasalam yasix wama kana yasqut wayuksha calayh. rasuulku sala allahu alayh wasalam ilaahay daraaddii waa u ooyi jiray, laakin mana qaylin jirin, mana suuxi jirin. wahakada kana asaxaabatu ridwan llahi calayhim. kadalika saxaabada ridwan llahi calayhim marka ay maqlaan almawaacid waanadu way raadayn jirteen, laanna quluubtooda ayaa noolayd. bikhilaafina naxnu, inagu waa ka duwan. wuxuu leeyahy anas ibnu malik radia allahu canhu, sida ay wariyeen asxaabu sunan wagayruhum, khaطbana الnabiyu salى الlahu alayh wasalam khuطba faqaal law taclamuuna ma aclam ladaxiktum qaliila walabakaytum kasiira. rasuulku khudbadaa wuxuu yihi dhexdeeda, haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay in yar baad qosli lahaydeen. yani umuurta aakhire idinka horaysa calaa xaqiiqatiha haddaad u ogaan lahaydeen, in fara badanna waad ooyi lahaydeen. qaala fagaطaa asxaabu rasuuli illahi wujuuhahum walahum khaniid. saxaabadii rasuulku wejiyaday qarsadeen iyadoo hindhaadhir uu ka soo baxaayo, macnaa yabkuun, waa oohinay isku celinayaan min ajli hadihi alkalimaati alwacdiya alatii samicuuha min rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam. kalimaadka waanada ee rasuulka ay ka maqleen ayaa dusha uga soo baxay, raad intay qalbigooda ku yeesheen bay dusha uga soo baxeen. wakadalika taclamuun xadiid alcirbaad ibnu sariya qaala wacadana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam mawcida wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun faqulna ya rasuula allah kaanaha mawcidatu muwadicin faawsina. rasuulkana waaniye buu leeyahy cirbaad ibnu sariya. waxaa riwaayaadka qaarkood ku timi bacda salaati alfajri inuu rasuulku istaagay sala allahu alayh wasalam bacda adaa hadihi alfariida. waana xeel dheer, quluubtayday raadaysay, cabsi bay nagu beertay, indhaha yagina way ilmeeyeen. haakada kaana saxaaba ridwan llahi calayhim tatruku lmawaacid fi nufuusihim aharan. camalla waa kaga tegi jirtay waanadu, waayo quluubtooda ayaa nool. aayad ilaahay markuu soo dejiye ku camalfalkaya dib umay dhigi jirin. ilahay wuxuu soo dejiyey khamrigu inuu xaaraam yahay, dib umay dhigin oo khamrigii ay haysteen may odhan xataa waa xoole iyaynan khasaarin ee kan aynu ka faa'iidaysano. markiiba shawaaricdii iyo wadooyinkii magaalada madiine ayaa khamri durduray. ilaahay daraaddii bay uga hadheenay u daadiyeen. waman taraka shay-an lilah cawadahu llahu khayran minh. haddaad shay ilaahay kuu diiday ilaahay daraaddii uga tagtana hamood inaad ku khasaarayso amay wax kugu seegayaan. mid ka khayr badan buu ilaahay kugu bedelaya. ilahay baa subxaana wa tacaala xijaab ku waajibiyey nisaa almuslimaat markii aayaddii raggu ay rasuulka ka maqleen guryaha ay kula noqdeen. subaxnimadii dumarkii waxay soo baxeen iyagoo maryahoodii intay isku kabkabteen wada xijaaban, oo xataa qaab socodkoodu isbedelay oo deganaanshiya xasilooni ay ka muuqato. waxaa la xaaraantimeeyey sida raafic ibnu khadiij uu leeyahay, bukhaari iyo muslim baa warinaya. wuxuu rasuulku naga nahyi buuu naga reebay arrin ay maslaxa iyo dani ay noogu jirtay. nahaana nabiyu sala allahu alayh wasalam can amrin kanat lana fiihi manfaca. siday noola muuqatay manfaca iyo waxtar baa noogu jiray. walakin tawaaciyat llahi wa rasuulihi khayrun lana. inaanu allah adeecnaanu ka amar qaadano oo rasuulka sala allahu alayh wasalam aanu yeelno ayaa wax walo wanaag noola muuqdaba nooga khayr badan. waa almusaaraca, waa dhulka inay kireeyaan ayayd arrinta loo diiday. oo ninkuu yidhaahdo nin kale idhaha dhulkayga kiree ee iga kirayso oo qaybtaa adigu ka shaqeeyo, qaybtaa wixii kasoo baxa qaado, qaybta wixii kasoo baxana anaa qaadanaya. waa laga nahiyey. manfaca iyo maslaxay u arkayeen, laakiin
ilahay bay uhogaansameen oo amarkii rasuulka sal alay wasalam ayay qaateen. hakada kana xaalu الصaxaaba ridwan اllahi calayhim lannahu qulubuhum kanat xaya ma kanat qulubuhum qaasiya. maanta inaga bal xaalkeena u fiirsada. qofka man yabkii min khashyat illah waaba la istiqraabsanaya, waa lala yaabaya, dadku waa la yaabayaanba. tala wadaadka maxaa ku dhacay baa la odhanaya. qala man yabkii min khashyat illah, qur-aankii baa la akrinaya. alimaam yusalli binnaas, imaamkii baa dadka tukinaya. almawaacid baa la maqlaya, waanooyinkii xeesha dheera, markaasaanad arkahayn. alquluub taxajarat, qalbigu hadduu dhagaxoobo waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay daaweyn iyo cilaajin fara badan buu u baahan yahay, iyo qofka lihi inuu ka warhayo ilaa xaaladiisii caadiga ahayd ee caafimaad uu kusoo noqonayo. waxaad arkaysaa dadkii oo loo sheegaayo wixii ilaahay uu ka mamnuucay, waajibaadkii loo sheegaayo. qalla man yamtatil, inta hoggaansamaysa ayaa yar. bal u fiirso war sigaarkaas dhibaato mooyaane dheef ma laha. wixii